xubno sarsare oo ka socda guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland oo uu horkacayo gudoomiyaha guud ee guddidaasi Nuux Maxamed Xuseen iyo agaasimaha guud ee guddidaasi Axmed Cabdirasaaq ayaa maanta safar ku soo gaaray degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaaga. safarka dib waxay kormeer balaaran ku sameeyeen halka uu ka socdo dhismaha jaamacadda Garadag ee Lead University. waxayna xubnahani mid u soo kormeereen qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda degmadaasi. maayirka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise oo kormeerka ku weheliyay guddidani ayaa ugu horreyn halkaasi sharaxaad ka bixiyay habka ay u socoto dhismaha jaamacadda Garadag. waxaan ku soo dhaweynaynaa jaamacaddii degmada Garadag. gudoomiyaha waftigiisa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shirka booqashada ay noogu yimaadeen. mudane gudoomiye iyo adii waftigaagaba waxaan idin sheegaynaa ama warbixintaan idinka siiyayna jaamacadda degmada Garadag. jaamacaddu guud ahaan way yara dhisan tahay. halkani waa administrationkii, qayb kale oo canteen-kii iyo galaasyadii oo ilaa 12 galaas ah. waxaa la kulmay nasiib darro koronihii, laakiinse waxa weeyaan waxaynu rajeynaa inay furanto sanadkan, laakiin intaa ayaa dib u dhacday, dib u ridka ku keentay. runtii dhinaca dhismaha xukuumaddu way nagala qayb qaadatay. aad baan uga mahadcelinaynaa qaybtay nagala qaateen. iminkana wixii ka dhiman kordhina waan loo rajaynaynaa dhinaca waxbarashada iyo ardaydaba. sida arkaysan jaamacaddu waxay ku taallaa meelo santar oo gobolkii Sanaag iyo gobolkii Sool iyo gobolkii u dhaxaysa. waa meel aad ugu habboon, waliba dhinacii xoolaha iyo deegaanka iyo waxyaalahaas oo dhan ay magaranaysaa wax fara badan ka tari doonta haddii magaranaysaa cilmiga lagu barto, haddii uu soo baxo. marka aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kastoo nagala qayb qaatay. bulshada reer Garadagna aad baan ugu mahadcelinaynaa. iyaguna waxa weeye inta qaybta badankeeda ayay qaateen. waxa kale oo jiri kara iyaguna dhismayaal kale oo qandaraasyo xukuumaddu ay bixiso oo iyaguna degmada ka socda, oo ay ka mid yihiin iskuullo, ay ka mid yihiin xanaanada xoolaha. iyagana waxa weeye aad baan uga mahadcelinaynaa. iyagana maalgelinta lagu sameynayo ama arrimaha horumarka ee ay xukuumadda Soomaaliland wado. gabagabadii gudoomiyaha guud ee guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ka xukuumad ahaan inay ka qayb qaadanayaan dhismaha jaamacadda Garadag. safarka iyagu wuxuu daaran yahay kormeer mashaariicdii guddida qandaraasyada qaranku ay dalka ka bixisay. waxaan ku sugannahay gobolka Sanaag degmada Garadag. waxaanu joognaa xaruntii jaamacadda degmada Garadag oo ay dawladdu ay qaadaan ka geysatay ama contribution ay ku darsatay. waxaanu eegaynay oo aanu dheendheenaynay siday shaqadu u socoto. shaqo wanaagsan baa ka socota jaamacadda degmada Garadag. waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadcelinayaa maayirka degmada Garadag. aad